الرحيم شركة جرايد ما أنت عقب تدوشي ده وشركة جرايد لا يتضبط لها أما مال لها أما صدح الشغلها واحد بدل سيدوي ماذا ما أنت شركة جرايد وحالتك دقاء الدنيا كوسو كوروني كهذا الكيده إياه كمسلمين هاني نجا وحي نجا لقطبون عرفتي ده إذا وحان كقبو إن هذه أي دنيا ده إلهي عرضي سودكتو ده وحويه وحلا جا إرتورت إلهي ونبا عبسيدي سنبا لجا جا إرتا عيد وحسك دفاعي كرتي عيد وحسك شوتين كرتاتون لما شفتوا المركز سيد على يلو الدنيا ده ما أنت وحي وغايب سنتي وقالوا إسلام قالوا وحي كقالوا ده إلهي أبو رتبي كقالوا ده iyadu markaa waxbay de dhaqan gaar ah isticmaalaysaa waana waxyaabaha keenayba cadada Ilaahay inay soo degto maxaa hadaba kala gudboon iyagu waa kuwa geeri ma ogola iyagu dhimasho ma ogola inagu se dad islaama baynu nahay dad dalalka islaamka ahi in dhimasho jirto waayo magaaladooyinkeena maalin walba konto waxa laga qaadaa magaalo walba inta soo meed baa laga qaaday ma kala falay maxay wax uga difaaci weyn waxa weeye haday maanta iyaga geeridu kaga cabaadisay iyo waxa Ilaahay u soo diray de inaga dadkuba waa dhiman inagu saasaynu u dhimanayna waana ogolay laakiin amaraan maqlayay ka soo baxay gudigii hawsha loo xilsaaro la leeyahay masaajidada hala xidho diiniyan anigu diintu waxay ka qabtay anigu garanmay laakiin war hadaanay xidhnayn kuwii fusuqa lagu sameeyay guriyada lagu sameeyay la awoodu lahayn aad xidho oo kuwii qaadka iyo xanta iyo beenta iyo balaayada la galay furan yihiin intii masaajidka ku jirtayna aad tiri ka soo yaacay kuwana aanad xidhi karin marka ma dadka intii Ilaahay ba inoogu damina xariisanayeen aad ka tiri soo xidha masaajidka ma soo kuwan furan ma aha marka kaniisada isugu kaalaya dadku waxa weeye anigu waxaan oran lahaa daari sida tan qabin hadaani dawladdu awood u lahayn inay xidho dhulka fusuqa iyo guryaha lagu sameeyo waxaan hadaani iyadu xakamayn karin ee masaajidka quraya xakamayn baan anigu oran lahaa kuwaas oo furnaadeen kaana hal la soo xidho kaas waa kii lagaga eeran lahaa waxa xun mid labaad dadka maanta wadanka jooga xitaa bandow maalin uma taagayo sida kale hayso ilaaliyo dadku sida shimbiraha subaxii soo dareeran 3 meelood oo boqolkiiba 3 meelood sida shimbiraha waxaan leeyahay war dawladda hadaanay awood u lahayn meelihii المرفشيدي الماليه البابدي كله هداني حليبا كارين مساجدكي هلا حلو anigu ma qabo inay de waa meeshii laga eeran lahaa inta yar baaba Ilaahay inoogu dambi dhaafay masaajidka ku jirta magaalada Burco waxa ka dhacday baa la yiri nin baa laga helay reer Burco waa soo yaacay waxay yiraahdeen ninka laga helay baa soo eegay hadda waa kii laga carari lahaa dawladda oran kari weedo war ka noqda markaas la ninkii waa laga waayay markaas waxaan isla soo sawiraynaa ninka laga waayay war bal dadkeena waa yahay hadaanad wax xakamayn karayso dawladuna de wixii nidaamkii wixii ay wax ka qaban karayso talaabadeeda ha qaado wixii nadaafad laga hortagayo wixii kale ay qaban karayso dad baan maqlayay miyiga ha loo baxo oo miyiga ma gurigaaga aad ka aragtay dadka boqolkiiba 3 meelood oo 2 meelood waqti bay ku sugan yihiin ilaa adigu lacag miyi ugu rarto hayso horta ma eegtay kuwa kan marka leedahay miyaha loo war sida kale dadka nidaamkiisa ha la qabto dawladdu wixii ay qaban karayso ha qabato dadku hays ilaaliyo nadaafadiisa ha ilaashado in hadaba la dadaalo oo nadaafada lagu dadaalo oo dadku kala fogaado oo sida loo hogaansamo wacyigelinta wasaaradda ay caafimaadku bixinayo culimadu sida ay qabto in loo hogaansamo waa fiican tahay laakiin meelaha wanaagsan ee ay Ilaahay ugu dhawaanayno ee xuskiisa ugu dhawaanayno hadaan la wada xakamayn karin meelaha kale iska furan yihiin ma wanaagsaneen meelahaas furan Ilaahayna waa inoogu cadhoonaya mid labaad ma xanuun baynu ka baqnaayo Ilaahay baynu ka biqi weynaa iyo inoogu faral yeelay in masaajidada lagu tukayo diinta marka ma xanuun baynu ka baqnaa maya waxa weeye ka biqi maynee waxaynu inagu Ilaahay baynu ka hoos galeynaa dadka islaamkoona meel kasta oo aad joogtaan mucjiso Ilaahay iyo haday soo degaan ka hoos gale Ilaahay isu dhiiba cibaadadiinu haday idinka xuntahay sugta hagaajista dunidii waxa soo degay cala Allah soo degtay dunidii maraysa islaamka waxa looga baahan yahay xagga Ilaahay u cararaan gaalo iyadu ma oga awalba ma ogeen Ilaahay iyo arrimihiisa toona waa taacay qaylinaysa inagu aanu cararo xagga Ilaahay sidaas aan lagu oran lahaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.